Soomaaliya geeka xukun dil ee ka fudhiday dhaqarqabo ku tirsanaya maleeshiyadka Al-Shabaab kaasoo hore dilan ku jeysidii magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed dhaqarqabadan dilka la ka fudhiyay la ka magacaabo Jari Maxamed Aadan Borow kaasoo masjidka yaala magaalada Baydhabo ka dilay Sheekh Madeer Madgaab oo ku mid tahay culmaadiinka aagna ku hay magaalada Baydhabo meel xukunka dilka ku dhiwayba ka sugnayay gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabkooda Xasan Cali Nuur Shuute ee gudoomiyaha maxkamadda kora ee ciidanka qalabkooda Liibaan Cali Yarowa dhamme Muumin Xuseen Cabdullaahi ku-xigeenka heer ilaaliga maxkamadda ciidamada qalabkooda iyo ku hadalay xukunka dilka oo geeka iyo fuliyana taariikhdu markay ahayd 20kii bishii 6 2017 abaaro 9kii subaxnimo maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay Shabaab Maxamed Aadan Cali Borow 24 jir ah ina Khadiijo Macalin Maxamed ku dhashay Bakool kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyay in asagoo ka tirsan kooxda Al-Shabaab uu si bareer ah ugu dhex dilay gudaha masjidka Sheekh Aadan War Iisho marxuum Sheekh Madeer Madgaab Caliyow taariikhdu markay ahayd 15kii bishii 6 2017 dilkaas oo ka dhacay degmada Baydhabo taariikhdu markay ahayd 22kii bishii 6 2017 waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah isla maalintii xukunka ku dhacay ayuu xukunsanuhu racfaan ka qaatay xukunka maxkamadda darajada koowaad ciidamada qalabka sida taariikhdu markay ahayd 5tii bishii 7 2017 maxkamadda sare ciidamada qalabka sida waxay mar kale u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay gacan ku dhiigle Shabaab Maxamed Aadan Cali Borow waxayna ku xukuntay dil toogasho ah kadib markii ay ku cadaatay in uu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuum Sheekh Madeer Madgaab Caliyow maanta oo ay taariikhdu tahay 29 bisha 12aad 2018 waxa lagu fuliyay xukunsanaha xukunkii dilka ahaa wabillahi tawfiiq Shukri Ismaaciil Axmed JTV